ونهاي معلمين تي دكسيد القرآن كدقمة قرعيل قاركود أيان نهاي وحان نقمد مدرسين تي مقالة قرعيل قاركود أيان نقمد انتي كلنا ونقول فكروا مقالة دي شوغان وحان هالكان السوق النمت إن نقلنا مشايخ ذا معقود إن نهانه إلى إلهي أن أمره سبحانه وتعالى وأن يري أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين كوا إيمانك له إلهي الرسول كالرميان وإلهي كعب صدا ضدك الصادقين تمعقود هذا يا إلهي نيري سبحانه وتعالى ضدك أهل إيمانك أمر كاس إلهي سي أنه قاضنينا أيان هل كان السوء النمت سي أنه قرب استاغنه أو مشايخ ذا معقود أنه أهانه إن شاء الله تعالى سياسة السوء النمت ومعلمين تي دكسيد القرآن كقاركود يا مدرسين تي مقالة قار كميدة هدف كنغا يوجد كنغا دان كهدلنو waxa weeye wadankii mashaayikhdii markay ka tagtay oo waxa weeye ilaa waxa la yiri ida malaka al-araadilu halaka al-afaadil araadil haday madax noqoto oo dad wax ma garata ay madax noqdaan dadka fadliga laha meesha ku halaagsada leeyahay ma garanayaan ama ay gacantooda ku halaagaya dadkii fadliga laha ama yaani waxa weeyaan hoostooda ku halaagsamayaan marka araadil ayaa markay madax noqotay waad ogsoontihiin deegaankan markii mashaayikh ay ka zuuliyeen ayaan khawaarijtii ay ka zuuliyeen nabadu ahaa khawaarijtu soomaha weysan karin markii mashaayikhdi intay waxa weey loo adeegsado wax kale meesha ay ka baxeen khawaarijtii waa iska timid in doorkii guraceel dadka laga safriyo ayay gaartay magaalooyinka deegaanada u dhow dhanna ay ayaga xukumaan marka mashaayikhdeena markii Ilaahay noo soo celiyay awal wadnaha farta lagu hayay wadnihii farti waa ka foqday waxaanu garab taaganahay mashaayikhdanada hadafkanaguna waa la dagaalanka khawaarijta soo sidaas ma culimo Allah hadafkanagu waa la dagaalanka khawaarijta soo sidaas ma intaasaan isugu nimid insha Allah ta'ala waxaan ummadda islaamka u sheegaynaa anagu duulaan kuma nihin dawladda federaalka duulaan kuma nihin dawlad goboleed waxaanu duulaan ku nahay kaliya khawaarijta banaysatay dhiiganaga iyo maalkanaga dhiiganaga iyo maalkanaga kuwa banaystay baan duulaan ku nahay ayaga cadowtinimo naga dhaxayda dad kale cadowtinimo naga dhaxaysaa ma jiraan dadka soo qaylinaya oo media ka qaylinaya oo qaarkood mas'uuliyiinta ay yihiin oo qaarkood xildhibaanada ay yihiin ayna doonayaan in dib loo soo doortay xildhibaannimo ay raadinayaan qaarkoodna xildhibaan ay yihiin ama mas'uuliyiin kale yihiin waxaan u sheegaynaa inaysan deegaanka dhibaatada ka jirta ay saraadi ka noqon inaysan dhibaatada mashaayikhda lagu hayo ahlu diinka aysan